halkan waa xaafadda Jabuuti degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaynu ka warami doonaa dhacdo la xiriirta kufsiga wiil 10 jir ah kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysan halkii baahinta wararka fadlan dib ay tahay markii ku gooraysa soo boqoto channelkeena saad hore nooga barateen waxaan idin ka codsan jirnaa subscribe saartaan haddii aad ku cusub tahayna inaad imika aad daawanayso subscribe saartid aad hore aad soo daawateen muuqaalkiisa oo dhameystiran gudaha gali doona ayaa waxa ay tahay in wiil yar oo stage uu kufsaday askari weyn oo ka tirsan ciidamada Muqdisho faafahinta ayaan gali doonaa intaan muuqaalka daawan fiidiyoga like gare kulanti wacan halkan waa xaafadda Jabuuti degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaynu ka warami doonaa dhacdo la xiriirta kufsiga wiil 10 jir ah oo 12kii bishan dhacay laba nin oo mid u hubaysnaa kuna labisnaa dariiska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa 12kii bishan xilli habeena waxa ay weerar ku qaadeen kaam ay degan yihiin dad danyar ah kuna yaala xaafadda Jabuuti degmada Shangaani ee gobolka Banaadir qoyska weerarka lagu qaaday ayaa xilliga la weerar ahaa kuwa hurdaya gurigan daaqada idin muuqanaysa waa halkii ay ku badbaaday hooyada qoyska iyo mid ka mid ah caruurteeda hase yeeshee waxay guriga kaga tageen wiilka kufsiga loo geystay oo aanu magaciisa qarinay si aysan saameyn ugu yeelan mustaqbalkiisa dambe laakiin waxaan go'aansanay inaan warbixintan ugu adeegsano magaca Axmed ragga weerarka geysta ayaa la tilmaamay inay guriga halkan ka soo galeen soo galista guriga ka horna waxa ay iska soo hormariyeen xabad dhicista xabadda kadibna waxa goobta isaga baxsada mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday kaas oo ah midka aan hubaysnayn haddaba sidee buu u dhacay kufsiga sideese ku suura gashay in gacanta lagu dhigo ninka falka ku eedeysan waxaa Shabeelle la hadashay hooyo Fardoosa Maxamed Dirir oo ah hooyada dhashay wiilka dhibanaha ah babaqaan fiiriyay haddaan fiiriyo waxaan arkay laba nin oo midi yahay dalka dariiska militariga wuxuu leeyahay kan kalena wuxuu igu jiraa laabka aniga haddaan sidaan ogaaday wiilkayga yarka ah ay iga xoogeen waxaan dhahay hooyo cabsiraan meesha ka kacaan dhahay tuuga soo gashay haddaan saan dhahay inaan waa niman i hubsaday inaan ahay maama aan ilmaheedu yar yihiin oo meeshana ila degan aan saas u ogeyn nimanka marka hooyo aniga waa argagaxay maxay ahayd gabadhii yareed iyo maxay ahayd aniga waxaan ka baxnay dariishadan daan hooyo ka baxnayna maxay ahayd oo kale wiilkii loo soo galay meeshana uu jeexday haduu soo galayna wiilkii xoogay kii kana waa iska bixiyay kana guriga lagu qabtay wiilka isbitaal Madiina la geeyay shay hadii isbitaal Madiina la geeyo waxa dheecaan laga qaaday waxa laga helay shahwadi ninka maxay ahayd oo kale ku siyaa jiraal dhahay maantana waxayna soo siiyeen cadeyn wanaagsan ayna soo siiyeen haddana wuu ii xiran yahay CID aan loo gudbinayaa biritool hadii ilaahay raali ka noqdo hadii ilaahay raali ka noqdo sidoo kale waxaa Shabeelle la hadashay hooyo ka mid ah dadkii ku soo baxay qaylada qoyska iyo dhawaqa xabadda diriska ahay ma fahamtay waxaan ku soo argagaxnay wax la yaab la xabado la ridaayo ninkii oo meesha jiifo oo buumadii ka siibantay suuqa ka siiban yahay oo qoriga ag yaalo oo qalaqi iyo xabadii qolof baalkeedii meesha yaalidii sakiin iyo kobihiisi ana qaaday oo xabadii qolofkeedii iyo sakiintii iyo kobihiisi alaqi aag ku jiray ana sadhiga maamulka isbitaal Madiina ayaa xaqiijiyay sax ahaanshaha kufsiga wiilkan yar sida ka muuqanaysa warqadaha idin muuqda dhinaca kale booliiska Soomaaliya oo xiriir aan la sameeyay ayaa sheegay inay wadaan baarista kiiskan isla marhaantaasina wixii ku soo kordho ay la wadaagi doonaan warbaahinta horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii Allah